عليكم السلام عليكم أصحابتي مeel kasta joogtiin kusoo dhawaada channelka maasha Allah tabaaraka Allah asxaabteyda fiidiyogan mar hore ayaan duubay waan ka gaari waayay labadii maalin oo aan soomaneyn ayaan afur diyaariyay laakiin iska mashquul adduunyo waan idiin soo gali waayay inaan soo galiyo waan ka gaari waayay halkan waxaan ku haystaa ujeedin bijiyo ayaa la cunayaa maasha Allah tabaaraka Allah wax laga soo tuuraa afur yar oo fudud maadaama lamada maalin ajir aan raadsanayna meel kasta oo aan joogno islaamka ilaahay ajirkiisa siiyo inta badan Soomaalida dhan way soomeen iyo muslimiinta meel kasta ay joogaan asxaabteydii halkan waxaan ku haystaa heel iyo dhageero iyo qorfo shaah ayaan ku soo karsan rabaa waxaan kaleeto oo aan sameyn rabo ku xigo waxa waaye karoodkan iyo kabsarta iyo tuunkan hilib ayaan ku soo shiidan rabaa oo sambuus aan ku sameyn rabo basalna halkan xabo ayaan isticmaal rabaa asxaabteyda oo wali aan wax iska reebi rabo maasha Allah tabaaraka Allah sambuuska dad basasha u yareysid gaas kugu kicin doono asxaabteyda basasha la iska yareeyo maasha Allah tabaaraka Allah basasha badan ma fiicno asxaabteyda waa kana meeshan waxa igu shiidmay basbaas cagaar tuun kabsar caleen iyo jab basal oo basasha daa'ay tusay aan ka soo reebtay asxaabteyda waxaan ku soo qasi rabaa bijiyaha qudaar badan ayuu rabaa qudaarta caraf ay siinaysaa bijiyaha maasha Allah hilibkina waa kana kaaroodka iyo basbaaska iyo tuuntina waan soo diyaariyay wada jeedaan waan soo shiidi doonaa sida ku soo baxana waa isla soo arkeena asxaabteyda la'aantiin abaar waaye kuwii hore noola joogay kuwa cusub kuwii habeen u tahay iyo kuwii maalin u tahay dhamaantiin soo dhawaada gacmo furan soo dhawaada la'aantiin abaar waaye fiidiyogan markuu idin soo gaaro share like comment inshallah biidnillaahi kariim horta kaaroodka ayaan soo jilcinayaa markaas ayaan hilib ku shiidi doonaa isdhihin maxaa waaye waxaan jaalaa kaaroodkii bas kaaroodka dhoot sambuuska ayuu ka duleelinayaa inuu kaaroodka waxa la rabaa uu baaba'o marka hore kaaroodka hilibkiisa shiidaysa oo bacdeen hilibka ku dar waa isku baaba'ayaan waa kana hadda waxa laga dareemayaa kaarood inuu ku jiro waa dareemaysaa laakiin basashina waa kana jab ayaan reebay jabkan bis ayaan ku darsan doonaa aniga si waliba oo sambuus u sameysanaysaan basasha iska yareeya basasha xoogaa dadka gaas ku kicisaa dadka waxay ku leeyihiin sambuuska gaas uu igu kiciyay sambuuska ma aha wax gaaska ku kiciyay waxa waaye wax gaaska kicinayo basasha la iska yareeyo sambuuska hilib lagu sameysto ama malaay kaligiis ama haysatid doorada hilibkeeda jiirta lagu sameystaa oo shafka waxaan iska yareeyna basasha wixii markaas haysatid ku sameysan kartaa laakiin laasin iska yareey basasha kuleel leedahay asxaabteyda waa kana hilibka markaas soo shiidnay sidan quruxda badan ayuu noogu soo baxay caadi maahan waa ujeedin sidoo ku soo baxay maasha Allah tabaaraka Allah maxaa kale oo ku xiji doono waxa waaye bijiyi ayaan soo qasayaa asxaabteyda bijiyaha markaan soo qaso oo aan soo diyaariyo insha Allah waa isku soo laabaneena waa ujeedin budada bijiyi waaye digirti dalkii ayaan soo shiidnay maasha Allah anaga makiin ayaan oo taalo reer Muqdisho way yaqaaniin makiiman waxa noo yaalo budo ka dhigay waxa oo inkii hal xabo laga arkeenin tan waa makiinteena caadiga oo ama lagu shiidi jiray cajiinka ama soorta aan ku shiidi jirnay asxaabteeda waa kaasa waxaan ku soo darayaa qamiiriso ama leebito soo taqaanid waa kana markaan ku soo daro oo soo qaso markuu soo qamiiro insha Allah ayaan isku soo laabaneynaa asagana oo aan aad isku soo dhaxgeliyo ka badan leebitada waa ujeedin wax yar inay tahay idin tusooyaa hal qaando ma ka badna asxaabteyda oo yar tahay leebitada saxanka dabadiisa cad marka ayadana kala yar ay leedahay marka saas loo maleeyaa inay badan tahay ha iska badan leebitada wax yar oo buran ku dar digirta markaad bijiyaha ka sameynaysid misirta laga sameyn karaa waxa laga sameyn karaa digirteena caadiga digirta waaweyn laga sameyn karaa bijiyo ay nooc ka sameyn kartaa bijiyaha daartidankay galeyda shiidan hadii wax yar looga daro inkii macaan loo ka qaadaa waxba kama dhibto qoftii iyo digirta ku yartaa galeydaas ku darsan kartaa marka ay nooc ayaa laga sameyn karaa bijiyaha waxba oo wareer ee malahan asxaabteeda
waa kanaan wax yar buraan kusoo daray waan soo qasi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo si fiican inaa isku soo dhexgelisid waaye si ay basbaaska iyo toonka iyo kabsarta ee hal dhinac ay u noqonaya basashi oo wixii dhammaan ayagoo isku dheeli tiran marka hore burka la dhexgelina oo ayagoo isku dheeli tiran wixii hadhowti carafta markaas isku dheeli tirnaan laakiin dhinac kaaga bato basbaaski caruurta kale uu dhibaya labada xab basbaaska kuleelkooda dareemayaan marka xoogaa waqti si fiican u xajin waa kaasaya asxaabteeda qoyaan kale inkeen ku qasaya aniga toonta iyo kabsartaas iyo ilaa biyan ku soo shiida Soomaa iyo basashana ayada dhashay marka waa kaasa alaas leem ku soo qasayaabo markaan kusoo qaso oo si fiican isku soo dhexgeliyana waa isla arkeena asxaabteeda maasha Allah tabarakallah inaba caadi maahan lagama sheekay karbijiyaan yaa islaamaha oo qatarta inaga walaa ay dhanaanka dadka jecel bijiya waa sheeyaha loogu jecel yahay cuntooyinka iyo leeleefooga iyo bataati macaanka iyo baarjil bajabsi lahaa yaa maadaama baararka waaweyn laga cuno baasti iyo bariis iyo waxyaabaha kala duwan intana baarjil bajabsi oo caadi waaye asxaabteeda insha Allah waxyaabo kale oo duwan oo cusub ayaan idin soo wadaa hadduu ilaahay raali ka noqdo insha Allah waa kana asxaabteeda saas ayaan isku dhexgelinoyaa waayo kabsarta iyo carafta hal dhinac iiga badanaysaa hadda halkaas dhinac le aan ku dhaafo laakiin marka juhdi geliyo cabaar qaso oo waqti siiyo wixii dhan oo ii dhaxgalaya waa kaas biikal kuma soo taaban xogaas aydu u jilcan yahay waa kana asxaabteeda sidan ayuu ku soo baxay digirta waxaa leedahay baalbaal yar oo guduud ah adaarto iska wareeji kartaa adaarto biyaha inaa la dhigtada korka shaandho uga guri kartaa aan laakiin sidii aan usoo dhambalay ayaan u qastay asxaabteeda maadaama aan budo kasoo dhigay wax laga wareejiyo ma lahayn yaa waa kana sambuus ayaan sameey rabaa asxaabteeda hadhiinaa sambuuska waxaa saliid loogu darayaa sambuuska waxa lagu daraa wax yar oo cusbe ah waxa lagu daraa fur saliid ah waxa lagu daraa caano booro hal qaando oo budada hadaa helaysid sambuuskaada ma yeelanayo in adeeg waa aragtay sambuuska inta badan dadka markay cunayaan meesha laga laabo kaleeto way iska jijibiyaan markii saliid lagu rido adkaada geesaha oo sambuuska markii la laabo oo saddexda gees oo kale dadka way ka tagaan kan bilaaw ilaa dhamaad sidii rootiga ayaa u cunaysaa gees adeeg markaa yeelanayo saacad waliba oo meersi yaalan waxaa u maleysaa inuu shay soo suufa yahay saliidna kaa macabahay sambuuskan maasha Allah gaduud dahabi oo ku noqonaya aad ayuu u macayahay sambuuska lagu daro caanaha iyo saliidda kale uu ka macayahay haddii meesha la isla soo saaray inka isku dhadhanama isku aragtina ma aha asxaabteeda sambuuskiina caanaha ku dara ku darsada saliidda waxa yar oo cusbe ah lagu darsado waa kaasa waa kana saasan sambuusku sameystaa asxaabteeda inaad aragteen ayaan jeclahay oo aad ka faa'iideysan doontaan waa kana burki inuu cadaan u ahayn waa ujeedaa waayo burka markii saliid iyo caano booro iyo waxaas lagu daro kalar oo yeelanaya caaniyo kaleeta gaduudina waa ujeedin foolada inaa sabaayad laga sameynayo camal inay u jiidjiidmayso sidoo hadda ismuud u yahay oo kash u soo raacayo ayuu hadhowna sambuuskaada ugu jilcanaa doonaa sambuus qurux badan jileec ah marka la goosanayo kharab iyo qajaac oona lahayn oo qatar ah ayuu ku noqonayaa sambuuskaada asxaabteedii ha laga faa'iideysto dhammaantiin meel kasta oo aad joogtiin caalamka annagana insha Allah waan ka faa'iideysan doonaa horena way uga faa'iideysanay maasha Allah tabarakallah anaga ma u sameysana mahanu sambuuska si kaleeto inaa saliidaas iyo burkaas waxaas ku darno ayaan ku sameysanaa asxaabteeda gurigan iska buuq waaye raali ha leega noqdo haddii aa buuq iyo waxaas aad maqasheen oo joogi degan aad dareemi waysiin waa iska taqaaniin guriga maalinta u buuqa yahay halkan waa kana waxaan ku sameynaa burmadhaasiga waaye waxaan kusoo darayaa leebito caano booro waxyaroo saliid ama subag wixii ii yaalo markaas aan haysto waxyaroo budo ay u shiidan waxaan kaloo ku darsan rabaa hal koob haafkiis oo qumbaha budada oo supermarketyada laga soo gado
qumbahaas ayaan ku qasanayaa markaa ruugtidoo kaleeta dhadhan aada u macaan ku yeelaya. haddaad qumbahaas haysanin qumbaha qoraga lagu hoolo taagtaag ayuu leeyahay dhootii caqabadoo kugu noqonaya burka markaa fidinaysid. kaasaa qalaadada ku shiide caano kaleeta meesha oo u isticmaaleed biyo inaad ku qastid burkii waxaa ku qasanaysaa caanihii qumbaha caraf gooniyo ku siinayaa dhadhan macaan badan oo ku siinayaa guduud dahabi oo ku noqonaya. asxaabteyda halaga faa'iidaystay waa kana burmadhaasigina waad u jeedaan. inkasta oo hadda ka hor maalmaha kamid aniga burkan aan u aqaano asxaabteyda burfidis aan u aqaano ayaan Nairobi tagay markasta dadka aan waxaan jikada maanta wax cusub asaas la yeelaa hadii la dhaho waa gaadgaado yaa fiiri waxaan aad aragtida aan dhaha markaas waxaan la war caawda casho maxaa laga dhigaa burma horta heblo marka ay maato naagta barwada marka ay maato burmadhaas ha suubiso gabar walaashay dhahday ayadana inta aan ka salaamay ilmaa iyo duwaha maasha Allah oo ayaga dhamaantood Nairobi joogo ayagana hawada salaan u marnaa markaas waxaan isdhahay sheekada burle madhaasigan la sheegayo iyo ka fakanaa isdhaha maalinta horta jikada isku soo baakimay asxaabteyda jikada markaa isku soo baakimay oo aan sugay wixii markii la qasay waaba arkabo waxaan dhahaa burmadhaasi maxay uga hayeen burleeba qasooyaan waa kana burfidis maalintaas aan ka yaabo marka burka anaga Soomaaliya dadka joogo Muqdisho ama Soomaaliya meel kasta inta badan burfidis u yaqaaniin dadna waxay u yaqaaniin burmadhaasi sida hadda gabar kaleeto ayadana barbara joogto kaleeto ayadana asxaab ahayn ee ku dhahayso maanta waxaas quraaca ayagana dadka Hargeysa ama meelahaas jirane quraacay u yaqaaniin meesha anaga uga naqaano Soomaaliya burfidis ama dadka Kenya ee meelahaas kaleeto jooga ee u yaqaaniin madhaasi ayagana waxay u yaqaaniin quraac quraac ay u yaqaaniin marka qof walba magac u baxsatay halkan waxaan ku haystaa waa mishaaridi oo meesha aan ka maqneen oo u jeeda waa macsaraysanaha anag maadaama macsaro ratiga shiidayo iyo macsaro makiinta shiidayso labadaba Soomaaliya ee taalo oo Muqdisho meesha tagtidbo oo geelka wareejinayso arkaysid midna makiinada iyadoo fresh ah ka heleeno asxaabta u jeeda waa isna faqeynona ina macsaro ka soo buuxsan mishaarideena yaa meesha ma u jeedin mishaaris isku bedashay ee xalwo guduud u noqotay ma sha Allah tabarakallah ilaahay inta haysanina siiyo inta haystana u barakeeyo waa kana hay maxal soo gaaray bajiye alaabtiisa la shiidaya bas cagaara meeshan ku haystaa laba xabo tuune jabiro basale karrafa la isku soo siina basbaaskii bajiyaha ayaa la isku soo daarsan rabaa waa ogtiin meeshan dadaabo inay cabaan ay ku dhowdahay basbaaska oo dhaarsan dadna caadi ay u cunayaan dad way ku jabsanayaan qof bas sida jeceshahay ayay samaysanaysaa waa kana basbaaskii sidan ayuu noogu soo baxay markii aan soo shiidnay quruxda badan maanta la dhaarsan yahay hadda laga soo tumaaya aan ku dheefeeyaa waa kana sambuuskeeni sidan ayuu ku soo baxay basbaaskeeni waa kana bajihi meesha kama maqno mooskii maxaa ku dhahayay burkii bajihi shaahi iyo qaxwadii qof waliba waxa rabto mishaaridii ama shurbadiisa u taqaanin dhammaan oo dhameystiran yahay afurkeeni maantay saabteeda asdeenaas xilligan la soo dhigay maxaa afur labada ma ay shalay iyo daraad ayaan soomaneen afurkan shalay ayaan duway laakiin asxaabteeda waan ka gaari waayay inaan fiidiyoogi aan soo geliyo qadka ayaa iga